qof qaran dumisa 12 xildhibaan oo Firimbi soo qaatay oo uu horeeyay xildhibaankii ugu horeeyay baarlamaanka 10 Firimbi qaatay Xasan Firimbi uu horeeyay ayaa sidii iyaalka fiiq meesha ka yidhi xaashaa lillah waa laga xishoodaa waxaase dhibaato weyn ah in askari Soomaaliyeed oo amniga sugaya oo aan gacan u geysan oo budsidan oo naxabad sidanin oo waxba sidan oo celinaya madaxda qaranka ee lagu weerarayo meesha iyo fowdadii baarlamaanka dhexdiisa ay ka sameynayeen inuu dhaawac yahay oo la dilay askarigii oo sanka lagu dhufto dhiiggiisii socdo falgarasiyaha lagaga qaado xildhibaankana uu ku dhex jiro xildhibaankii dilay waxaan u marinaynaa miidiyaha shacabka Soomaaliyeed wakiiladiinni haddaan nahay dadka tirada yar leh fowdada baarlamaanka ku haya waad u jeediina ka hadla guddoonka baarlamaanka labada aqal waxaan leenahay waxaad tihiin mas'uuliin waxaad leedihiin xeeroosaadyo wax lagu xukumo maxaad xeeroosaad ka wadeegan weydeen maxaad uga fadhiisin weydeen fowdadii waxay sameeyeen askarta la dilay mas'uuliyadeeda inaad qaadataan baan rabnaa waayo askartii qaranka ee taagnaa ee booliiskii ahaa ee ku qornaa golaha iyaga shacabka sargaalkii uu sarreeyaa lanaga dilay oo dhaawaca dhiiggii sidaa istaag waayay dhakhtar baa la geeyey sanku ka jaban yahay yaa mas'uuliyadda iskale xildhibaan haddaad codkaaga sheeganayso wixii ka dhacay Jubbaland baa inii akhriyeen oo hadday akhriyeen may sugaan bari waa maanta waa Arbaca sabti baanu imanaynaa may soo jeediyaan badheerahooga xildhibaanku waa ka codkiisa intuu mikrofoonka qaata ugu gudbiyo shacabka Soomaaliyeed wuxuu qaba maantana guddigii 18 ahaa waa la ansixiyey dalkuna dib uma noqonayo hor u soconayaa waana la shaqaynayaa qaranka Soomaaliyeed baa loo shaqaynayaa waxaan leenahay dad bay meel bugtaa balbashaa qarannimada Soomaaliya hal la ilaaliyo waan idinka iskala dhalinyaro ilaashada yaan beelaynii sheegin dhalinyarada miidiyahow waxay nifaraya faarax waxa loo diiday inuu wax doorto waxna isna la doorto adna waa lagu diiday yoonisna waa loo diiday wiilkaygana waa loo diiday war haraa'i siyaasi dana gaar ah leh haraa'i annagoo ah xildhibaanada labada aqal ee Jubbaland laga soo doortay oo muddo bila ku maqneen dowlad goboleedka Jubbaland fasaxna ka qaadanay gudoomiyaha baarlamaanka saan ugu kuurgalno xaaladda ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland ee siyaasadeed iyo mid amni wada tashina meesha u aaday ayaa markaan soo laabanay Jubbaland waxa ka dhacday sababtihiin doorasho 35 xildhibaan ayaan goobjoog kaga ahayn doorashadaas labada aqal oo Jubbaland ka soo jeeda doorashadii markay dhamaatay si ay la socotaan dowladda federaalka ah waxay weerar ku qaaday dowlad goboleedka Jubbaland ciidamadii qaranka ayaa waxa loo adeegsaday siyaasad dhul xureysnaa al-shabaab laga xureeyay dhul al-shabaab laga xureeyay 10 sano ka hor oo raaskambooni ah ee dowladda federaalka ah ciidamo ku daadguraysay iyadoo rabtay inay khalkhal amni geliso una fududeyso shabaab dhulkaas inay qabsadaan saa la socotaan dhulkaasi waa raaskambooni kudaa buurgaabe badhaadhe kulbiyow waan dhul istiraatiiji hood ahaa 10 sano soo dhaafay waxa amniga gacanta ku hayay ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland waxa hore uga baxay meeshaas ciidamada ADMIS waxa la wareegay ciidamada daraawiishta Jubbaland waxay hore u la wareegeen oo ADMIS ay ka baxeen Itoobiya iyo Kenya oo ADMIS ahaa meesha la dhaho ma dhamaato Cabdalla Biroole kudaa buurgaawo iyo ceelwaq inta waxa amnigooda la wareegay ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka intaas waxa la bariyay dowladda ciidankeeda way diideen hal mar bay waxa u dirtay 900 askari 900 askarina inay dagaalamaan way diideen 700 ka mid ah dib ayaa loo soo celiyay kadib ka dagaalkii uga baxeen ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland haddaba markii madaxweynihii dowlad goboleedka Jubbaland la doortay oo extension aan diidnay oo shacabka Jubbaland ay diideen muddo kororsi Soomaaliya oo kala maqan Puntland oo maqan SCC oo maqan nimankii ahaa badbaado qaran iyo odayaashii waaweyn madaxweynaha hore oo maqan saamilada siyaasadeed oo maqan ayaa waxaa la damcay in shuruuc been ah baarlamaanka la marsado shuruucdaas waan qaadacnay annaga maanta ayaan soo laabanay weerarka lagu hayo Jubbaland ka sokow waan ku soo laabanay maanta halkan waxaan geynay mooshin labada aqal annaga ah waxaan dhahnay waxaan rabnaa xaaladda ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland inaan warbixin ka bixin waxaan markaa mooshinka u dhibay gudoomiyaha baarlamaanka markii uu naga aqbalay markuu naga aqbalay kadib isku laabtay haddana waxa culays laga soo saaray madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa la yiri mooshinkaasi warbixinta ah nimankaas waxay kaga hadlayaan arrimo siyaasadeed arrimo amni way kaga hadlayaan ka jooji waxaan dhahnay hadda naga joojisid baarlamaan ma furmayo waan ku soo wadaa baarlamaan ma furmayo dhahay meeshan wax suudaadiga meeshan wax kooramo inta maqnay anaga wax kooramo ka jira ma laha
وافق بقول تواتس كده بقول يا توقف تامجو برامج وانا اركيسين ما كان فديسنا waxaan dhahay koram waan ku soo koram ka sheeg waan dhahay tiris ma sheegi karo dhahay waxaan dhahnay waxaan rabnaa warkii inala siiyo inuu la sii wadiiday waxaan go'aansanay guddi sharci darro ah oo aan la isku waafaqsaneen oo suuqa laga soo qortay oo sidii hataa heshiiska hore diwaan raacayaa la dhaho isteedooba inuu laba ku yeesho heshiis kale la galay 2023 hadda Puntland iyo ACC iyo Jubbaland waxa guddi ay ku leeyihiin malaha suuqa bakaraa laga soo qortay Cabdirashiidaya guddi la soo qoranayo guddi matala deegaan dad maaha talaawada waxaa la maasaxin waa been waa arkayseen waa la ansixin ma jirto waana sharci darro waxna kama jiraan waxaan rabnaa waxa allaala wixii ka imaada mas-uuliyadda way qaadayaan waxaan kaloo sheegaynaa tallaabooyin kale inaan qaadi doono haddii aag laga furay raas kamboni aag kale halkan ka furnaan doona waa arki doontaa maalinta